annagu inta badan dawlad ahaan ma ogolaan karno taaka dhul ah oo gobolka Sool ah marnaba in lagu soo xadgudbo ma ogolaanayno wadogtana dal iyo dhul midna inagama dhaxeeyo waxaanu nahay laba dal oo darisa marka inta ina ilaalisan baleed ka raba dal iyo dhul midna inagama dhaxeeyo taaka dhul oo gobolka Soolana ma ogolaana runtii in aan ku soo xadgudubtaan dal iyo dhul midna inagama dhaxeeyo anagu Soomaaliland baan leedahay idinkan Soomaaliya la yiraahdaa wala maamul goboleed ka tirsan maatiin dawladda federaalka hore dhulka loo kala hadeeyay wixii san cadaalada Ingiriisku oo calaamadii hadaan u dhaafno waa idka gardaran wixii san cadaalada Talyaanigu calaamadsaday hadaan noo soo dhaaftaan waa naga gardarantiin maalmo waxa la isku haystaa waa meel aan leenahay ama meel ay leedihiin annaga dadkaygu ma xadgudubka ma yaqaanaan mana doontaan runtii inay dhulka ay garow xukunto ama gobolka Nugaali aan dariskanahay Soomaaliya aan ka dariskanahay oo isagu nagu soo xadgudbo maalin walba dadkaygu kuma xadgudbaan mana aadan mana doontaan waqtiina celo asid baan ka soo guurnay oo dadkaygu ka soo guureen xagga uma dhaafsana shalay bixin baa la isku haystay waa la isku haystaa control la dhigteen bixin baad maalmo walba timaadaan oo aad doonaysaa inaad mashaariic ka samaysataan intaas nama qabato marka tan runtii dulqaadku uu soo dhamaanaya hadii intaas la iska qaadan waayo arintaas Somaliland waa la og yahay gobolka Sool toddoba magaalo walba degmada Laascaanood ka mid tahay maahan inta kale Puntland baa ka talisa Laascaanood gudaheeda Puntland baa caawimada geysa marka dagaal ay soo qaadi karaan nama jiro waa iska xasarad waa uu isleeyahay waxay ka shaqeystaan oo ay ku joogaan meesha qabaa'ilka iyo dadka ehelka maalinba jifi madaxa la isu geliyo si ay cimri dherer ugu sii helaan inay deegaanka sii joogaan arintaa un bay daaran tahay maamulka Puntland iyo shacabkiisuna uu diyaarsan yahay hadda inay deegaamada maleeshiyaadkaas aslan hadda joogaan muddo dheerna ay joogeen inay iska kaxeeyaan way diyaarsan yihiin insha Allah waana laga kaxeynaya insha Allah taala hadda iyagu ay garan waayeen taga cid kama rabto meesha xilliga tagi lahaayeen baa dhow xilliga shacabku iska kaxeyn lahaayeen dawladoodu iyo maamulkoodu baa la gaaray marka adeer dagaal lama soo qaadi karaan daandaasay Puntland wadaana ma jiro shaqaaqo dad isku jifiya oo beesha hartiyada oo waligood wada deganaa oo isku hal reera ba shaqaaqadu dhex martay ماشي حسرده ككعد دغان ككعay hadda yeegto hadda ciidamada Puntland baa degan ciidamada Puntland baa jooga iyaga gacanta ku haya deegaanka ciidamada Puntland baa jooga ilaa shalay 6 maqribna wixii ka dambeeyay iyaga la wareegay beelihii ama maleeshiyaadka shaqada dhex marteena waa la kala qaaday qolana deegaanka ku dhow meel booc ku dhow baa la geeyay qolana birta dheer bay joogaan waana nabad wax dhibaato oo ka taagan haddana ma jirto dhaqan haday tahay iyo haday tahay culimo iyo haday shacab tahayna ogaade waxaynu iska yahay qoladaas waxay buunbuunaysaa waxa is leedahay halka inaad chance oo dadka ehelka ay coloobaan aad ka raadiseen chance na ugu ma jiro dadku waa tashoon yahay maamulka Puntland waa tashoon yahay dawladda Puntland waa tashoon tahay shacabkeedu waa tashoon yahay shacabku waa ogaadeen waxa socda iyo waxay ka hadlayaan inaysan wax sax ahayn madaxweynaha ku xigeenka iyo golihii wasiirada dood dheer oo laga yeeshay shirki iyadoo laga hadlayo shaqadii dhex martay labadii beelood meegaag dood dheer kadib waxa ka soo baxay go'aamadan soo socda kow marka ugu horeysa golaha wasiirada waxay tacsi u dirayaan dhibtii halka ka dhacday dadkii ku dhintay iyo dadkii ku dhaawacmay iyagoo ka xun dhibaatadaas inay halka ka dhacdo qodobka labaad waxa la go'aamiyay in beelaha walaalaha ah oo halkaas hubaysan halka ka dhaca ku dagaalamay in la kala qaado halkaas oo ayan ka sokayn karin boocame iyo birta dheer labo in ay ciidamada dawladda Puntland ay la wareegaan goobihii lagu dagaalamay waxa kaloo goluhu go'aamiyay in loo magacaabo guddi heer wasiir ah wasiir ka kooban oo loo xil saaray
xallinta khilaafaadkaas sidaa darteed ciidamada puntland waxaa la farayaa oo ku howlan dhexgalka dadka walaalaha ah ee halkaa ku dagaalamay inay si buuxda ula wareegaan goobihii shaqaaqadu ka dhacday waxaa kaloo la farayaa beelahaas walaalaha ah oo halkaa dhex maray inay dhammaan odayaasha ay waxgaradku ka shaqeeyaan iyo ciidamaduba siday u kala tegi lahaayeen goobihii loo calaamadiyey oo ahaa boocame iyo birta dheer